الله وبركاته kusoo dhawaada casharadeen imtixaanaha aynu uga hadlaynay luqadda loo yaqaano SQL Server. Cashirkeenan shanaad tutorialkan waxaan uga hadli doonaa waxa loo yaqaano table oo iska leeyahay SQL-ka, qaabkii loo abuuri lahaa iyo qaabka wax looga bedelo, iyo hadday noqoto inaad drop gareyso oo aad u baahnayn inaad iska tirtid aad samayn kartid. Tutorialkan marka waxaan uga hadli doonaa muxuu yahay table, sidee loo abuuraa table, qaab kala duwan oo tableka loo abuuro, sidoo kale sidee wax uga bedelnaa table, qaab kala duwan oo aan tableka wax uga bedeli karno, iyo sidoo kale inaan tableka iska tirtiri karno anagoo isticmaalayna qaabab kala duwan. Pointiga ugu horeeya haddii aan galno wuxuu yahay maxaa la dhahaa table. SQL markii la joogo table waa waxa ugu muhiimsan oo loo isticmaalo in lagu keydiyo xogta, waana object kuu keydinaya datadii qaab row iyo column ahaan. Sidaa ujeediin midkan verticalka waxaa loo yaqaanaa column and field, midkan horizontalkana waxaa loo yaqaanaa row ama record. Kuwan kaleeto kor saaranna waa headerska uu leeyahay column nameski. Haddii aan gudaha u galno marka sidee loo abuuraa table, qaabka ugu horeeya marka horta muhiimadda koowaad waxay tahay tableka waa soo fahnay in wax lagu keydiyo. Intaada ku keydin ka hor marka waa inaad tableki soo abuurtaa, kadib ayaad data soo geli kartaa, kadibna waad kasoo aqrin kartaa. Qaabka u abuurayno marka tableka dhowr qaabood ayaa jiro. Inaan query qorno oo TSQL aan qorno, qaabkan kaleeto gadaalaan ka arki doonaa waa in table kaleeto laga abuuro table hore u jiray, iyo inaan isticmaalno table designer oo GUI graphical interface inaan isticmaalno. Saddexdaas qayb ayaan samayn karnaa. Marka labada qayb oo aan calaamaysan ayaan isticmaalaynaa. Qaabka ugu horeeya markaad abuuraysid table waa inaad sheegtaa horta columnskiisa iyo data typeskiisa. Waa inaad syntaxigiisa wuxuu noqonayaa in aad abuurtid create table, table name, columnska aad sheegtid, data typekiisa aad sheegtid, constraintiga null iyo not null miduu noqonaya aad sheegtid. Marka table nameku wuxuu noqonayaa tablekaaga magaciisa ayuu noqonayaa, halka column name column 1-kaana uu noqon doono iyo column 2-gaan columnyada magacyadooda. Kana wuxuu noqon doonaa data typeka, waana kasoo hadalnay qaybaha kala duwan oo data typeska ay leedahay. Null iyo not null waa inaad specification aad u sameysaa in macnaha column-kaani uu wax null ah qaadi karo iyo inuusan qaadi karin. Haddii marka aad ka ilowdid ama aad iska dhaaftid, default ahaan wuxuu u qaadanayaa null. SQL-ka isaga ayaa marka defaultgiisa null ayuu u qaadanayaa. Marka qaabkan ayuu noqonayaa oo create table, table namekii, columnki inaad sheegtid, data typekiisa, kadib constraintiga aad ku xijisid. Saas ayaad u define gareyn kartaa SQL columnkii. Marka qaab basic marka aan abuurno maxaa la dhahaa table lagu magacaabo table course ayaa lagu magacaabaa tablekan. Laba column ayuu leeyahay, course ID oo integer data typekiisa, default ahaan marka null ayuu qaadanayaa maadaama aynan sheegin, course name oo varchar 10. Waxyaalaha marka muhiimka ah oo la isweydiinayo prerequisite waxay tahay laba shay. Kow, in database-kii oo tablekan aad ku abuuri lahayd aad soo select gareysid. Waa inaad marka hore database-kaada aad soo sheegtid, database hebel ii dhig tablekan. Waxaa kaloo muhiim ah ayadana tablekan aad abuuraysid waa inuusan ka dhex jirin maxaa la dhahaa database-kaas aad isticmaalaysid. Haddii uu marka database-kan table ku la magaca tablekan haddii uu jiray, ma kuu sameysmayo tablekan, wuuna kaa diidi doonaa. Marka qaabkaas query-gan waanu isticmaali karnaa in aan ku abuurno table, waana arki doonaa iyadoo practical ah. Qaabka ku xigo step ku xigo marka waxay tahay tableka markaan abuurno si aan micno ugu yeelno waa inaan data aan gelinaa oo insert aan isticmaalnaa. So insert into tableka hadda aan abuurnay columnka koowaad. Haddii marka aad rabtid inaad ayadana wax ku shubto marka values ayaa iska leedahay, marka xogtii ayaa inta ku shubaysaa. Wuxuu ku sameynaa marka in xogtii uu ku geliyo tableka hadda aad abuurtay. For example hadda laba column oo lahay oo mid la yiraahdo ID iyo course name. Marka ID-ga waa kan, course name-kina waa kan. Xogtan ayaan gelinay.
waxaa kaloo markaan sameyn karnaa xogta markii aan gelino inaan xogtaas soo akhrino inoo isticmaalayna select keyword aad ayay u baaxad weyn tahay video dhan ayaan kasoo sameyn doonaa insha allah. select star from course markii aad dhahid wuxuu kusoo akhrinayaa wax kasta oo kooraskaas tablekaas course ku jiro. si aan u ogaano marka inaan xog gelino in kale waa inaan soo select gareynaa. qaabka labaad oo marka loo abuuri karo tableka waxaa waa inay isticmaashid GUI ama graphical user interface. table designer inaan isticmaalno inaan tableka database tool tagno qayb tableka aan tagno new aan dhahno new table kadib column nameskii database-kii haddii null noqon lahayn haddii kaleba waa qaabkii macnaha query aan soo aragno kale kadib aad save dhahid magacana aad u bixis. markaas haddaad refresh gareysid wuxuu kuu sameynayaa in tablekaas uu kugu soo daro meesha. hadda bal hal mar haddii aan soo fiirino tablekii maadaama uu laba qaab loo isticmaali karo waxaan sameysanaynaa horta marka hore inaan create gareysano database. hore aan soo aragna qaabka loo create gareynayo database. education law ayaan abuuranay inta markii aan imaano refresh dhahno database-kii noo soo galaa la rabaa education meesha noogu jiraa. marka si aan table ku abuurno waa inaan dooranaa database-ka aan rabno education ama waxaad dhihi kartaa use education saana oo isticmaali kartaa in database-ka aad isticmaalaysa ayuu ku select gareynayaa. marka waxaan sameynaynaa inaan abuurno table la yiraahdo course-ka marka waxaan siinaynaa sida data aan soo aragnay laba column loo yaqaano id oo integer comma column kaloo la yiraahdo name varchar 10. marka hadda waxaan abuuranay table loo yaqaano course oo labadan column iska leh. haddii marka aan fiirino inuu soo galay meeshaan tableska markii aan fiirino table course line noogu jiro wuxuu leeyahay laba column id iyo name. marka qaab kale waxaa jiro aan u abuuri karno tablada haddii aan inta dul imaano right click aan dhahno new aan dhahno table aan dhahno wuxuu noo soo saarayaa shaashadan. marka waxaa leedahay columnkan waxaa la yiraahdaa id integer ka dhig null ha u ogolaan not null haddana la ogol yahay not null aan leenahay. kan kaleeto name waxaa leenahay varchar oo varchar 50 iska dheh null ha u ogolaan. marka control save markii aan dhaho wuxuu leeyahay tablekaaga magac u bixi. tablekan waxaa u bixinaa magaciisa course title. marka waxaa noo sameynayaa in inta uu noo soo geliyo table la yiraahdo course title waan u jeedaa. haddii marka aan micnihi inaan u sameyno aan rabno oo course-kan aan isku dayno inaan gelino xog waxaan isticmaalanaa keywordka insert into course and valueska gelinayna maxay tahay waxaan rabnaa inaan gelino id-ga 1 ka dhig intana waxaad gelisaa SQL. haddii marka aan hadda intaan rangareyno wuxuu sameynayaa in xogtan uu noo geliyo database-keena tablekii aan hadda soo abuurno course ahay. haddii marka aan rabno inaan ogaano inaan wax gelinay tablekaas waxaan soo select gareynaynaa select star from course-ka hadda aan wax gelinay ayaan kasoo select gareynaynaa si aan u ogaano inay wax ku jiraan. halkan hadda waxaa noogu jiro id1 iyo SQL. waxyaalo kalena waa sii geli karnaa MySQL. haddii markaan soo select gareyno wuxuu noo sameynayaa oo na tusayaa xogtii hadda aan soo gelin. marka intaas waa hadda qaabka labada qaab oo loo abuuro table adoo isticmaalaya GUI-ga ama table designer iyo adoo isticmaalaya query. marka waxaan rabnaa inaan inta ka ogaano qaabka table wax looga bedelo. table markaa waxaad ka bedeleysid laba qaab aad isticmaalaysaa sida hadoo kale table designer oo aad u fudud iyo inaad query aad qortid.
column markaa kusoo daraysid oo kale waa kan queryga aan qorayno markaan rabno inaan column kusoo darno alter table nameka ayaa sheegaysaa add columnka kusoo daraysay tabekiisa sidaas ayaa hadda marka waxaan rabnaa inaan kusoo darno course duration waxaa la rabaa inaan rabnaa inaan kusoo darno tablekeeni data aan abuurnay waxaan tegaynaa waxaa kaloo jirta macnaha qaab kaloo ayadana loo abuuro loo alter gareeyo ayadoo la isticmaalayo table designer waa GUI inaad tableka tagtid gurigiisa design aad dhahdid add column aad ku dhufatid column namekii as course start date and select date type columnkii magaciisa aad dooranay date typekii aad dooranaysaa kadib save aa leedahay waa sidii hadda aan soo aragnay oo qaab query oo kale marka waxaa waajiba marka columnkan inuusan hore ugu jirin tablekaaga haddii aan fiirno marka qaabka alter ay u shaqaynayso waxaan sameyn karnaa waxaan leenahay alter tableka magaciisaan sheegaynaa course waxaan rabnaa inaan kusoo darno add column la yiraahdo duration integer oo kale ka dhig waa lagu soo daray laakiin hadda wax weliba xooga mayna gelin haddii aan soo select garayno marka course aan ogaan in lagu soo daro ujeediin columnkii duration oo lagu soo daray waxba kuma jiraan haddii marka hadda aan isku dayno mid saddexaad inaan kusoo darno oo u magac darno oracle durationkiisana aan ka dhigno 5 wuxuu noo sameynayaa marka inuu noo soo geliyo xogtaas meesha waa kana 5 ayuu noo soo geliyay oracle saas kaleetana loo alter gareeya waxaa kaloo sameyn kartaa inaad korkiis inta tagtid aad design tagtid meeshaan column kusoo dartid waxaan leenahay r date oo ula jeedno register date ayaan ka dhigaynaa date typekiisa control safe ayaan leenahay wuxuu noo sameynayaa marka in course-kii uu noogu soo daro column la yiraahdo register date table designer adoo isticmaalaya marka wax waa ka bedeli kartaa query adoo isticmaalaya wax waa ka bedeli kartaa mid u dambayso rabno inaan ogaano waxay tahay table markii aan rabno inaan u baahnayn table aynu u baahnayn oo kaleeto aan rabnaa inaan iska delete gareyno databasekeena si space badan looga qaadan marka laba qaab isticmaali kartaa inaad query aad qorto iyo inaad right click korkiisa aad ku dhahdo oo iska delete gareyso marka labada qaabna waan arkaynaa qaabkan ugu fudud inaad korkiisa tagtid delete aad dhahdo qaabkan kaleeto marka waa inaan query aan qoro drop table namekii aan sheego tablekan aan drop dhaho table namekina aan inta ku sheego marka waxyaalo badan oo la isku qalda ayaa jiro waxaan rabnaa hal mar inaan ogaano laakiin waxaan fiirinaynaa bal si loo drop gareynayo waxaa jiro marka delete ayadana waa la isticmaali karaa marka waxyaalaha ay ku kala bedelan yihiin marka delete iyo drop iyo truncate inaan ogaanaan rabnaa delete waxaa loo isticmaalaa horta waa DML waa data manipulation command rowska 1 by 1 ayay u tiraysaa xogta bis ayay tiraysaa oo rowskaas laakiin tableka structurekiisa wuu joogayaa delete marka isticmaalaysa waxaa la isticmaali kartaa where close condition ayay ku xiri kartaa waxaad leedahay queryga markaad qorayso waxaad leedahay shaqaalaha ID-giisu intaasi ay iga tirtir single row ka tirtiraa delete marka uu truncate iyo waxaas way ka culays badan tahay rollback marka waa la sameyn karaa oo wixii marka aad tirtirtay gadaal loo soo celi karaa marka rollback iyo grant iyo revoke waxaasna waa arki doonaa iyadana dropta marka maxay qabataa drop ayada waxaa waaye waa data definition language oo command marka waxay sameynaysaa structure-kii dhan ama schema tablekii oo dhan ay tirtiraysaa database-ka tablekan oo dhan waa laga bixinaya marka where close iyo condition lalama isticmaali karo dropta marka la isticmaalayo marka ayada way ka culays badan tahay delete iyo truncate waxaa ugu fudud truncate delete ku xigto drop ugu dambeyso rollback marka lama isticmaali karo ayadana truncate hadii aan u imaano truncate ayadana waa data definition language waxay sameynaysaa rowska dhan hal mar ayay tiraysaa where close ama condition row hebel tir iyo qof hebel shaqaale hebel tir iyo lama isticmaali karo
tarankeedu marka way ka degdegsiimo badan tahay labadan delete iyo drop. Rollbackna marka lama isticmaali karo. Table-ka markaad delete gareynaysa marka xogtiisa ayaa tirtiraysaa. Haddaad drop garaysid table-kii structure-kiisana ayaa tirtirtay. Tarankeedkuna waa delete oo kale laakiin way ka degdegsiimo badan tahay. Rollbackna lama isticmaali karo. Marka haddii aan fiirino inta ayaan imaanaynaa marka table-keena xog badan ayaa noogu jirto. Waxaan sameynaynaa marka waxaan leenahay delete table-keena magaciisaan sheegaynaa chorus. Haddaa sidaas aan ku daayo marka ayada dhan ayuu tirtirayaa. Laakiin haddii aan where ku xiro where id is equal to 1 kaliya mid SQL ayaa la tirtiri doonaa. Hadda marka haddaa soo select gareeyo chorus SQL meesha ku jirto id1 waa la tirtiri. Haddii marka inta aan ka reebo waxay noqonaysaa in asagii dhan la tirtiro table-kii wax xogta ku jirto oo dhan. Marka haddii aan drop isticmaalo drop table chorus iyo haddii aan isticmaalo truncate table-kan la yiraahdo chorus waxay u kala bedelan yihiin. Delete waxaan sheegnay xogta bis ayay tirtiraysaa. Single row-na waa lagu tirtiri karaa oo condition adoo ku xiray. Droptu waxay sameynaysaa table-ka dhan oo chorus ayaa waxaa laga tirtiri doonaa database-ka. Truncate-duna waa delete oo kale laakiin waxay uga bedelan tahay way ka degdegsiimo badan tahay. Condition iyo waxaas laguma xiri karo. Hal mar rollbackna laguma sameyn karo. Hadda drop haddii aan isticmaalno table-kan chorus meesha kuma jiri doono marka haddii aan refresh gareyno table-ka meesha kuma jiro. Marka truncate haddii aan isticmaalno chorus title aan la isticmaalno bal aan aragno. Truncate waxay sameysay kaliya un xogtii bay tirtiraysaa. Table-kii weli wuu taagan yahay. Marka farqiga u dhexeeya waxay noqonaysaa truncate oo kale rows-ki dhan hal mar ay tirtiraysaa condition lagama isticmaali karo. Waana ka degdegsiimo badan tahay labada kale. Rollbackna ma shaqeynayo markii aad truncate samaysid. Drop oo kale marka xogta dhan ayaan structure-kii dhan table-kii oo dhan ayaa wala tirtirayaa macnaha xogtiisa. Condition iyo waxaas marka laguma xiri karo maadaama table-kii dhan ba aad tirtirtay. Marka way ka culays badan tahay maadaama xogtii structure-kii wixii dhan la tirtirayo labadan kale way ka culays badan tahay. Delete ayadana waxaa waaye rollback la isticmaali karaa markaad tirtirtay kadib waa la soo celi karaa wixii wayna ka xoogaa culays badan tahay truncate markii la fiiriyo wayna ka fududahay drop. Summary-geena marka wuxuu noqonayaa delete markaad rabtid waa inaad rows iyo waxyaalahaas xogta ku jirta aad tirtiraysid. Dropna si permanently ayuu table-kii structure-kiisii iyo wixiisa dhan tirtirayaa. marka casharkeena halkaas uu noogu egyahay. Waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.